kusoo dhawaada casharkeena imtixaanaha ahaa waxaan ku jirnay qaybtii matrix aynu ku jirnay chapterkii matrix aynu ku jirnay maanta gaar ahaan qaybtiisii determinantiga waxaynu maraynaa calaamadii saddexaad waxaynu hore usoo sharxnay calaamadii koowaad ee leedahay determinant iyo midii labaad marka kusoo dhawaada hadda maanta waxaynu sharxaynaa casharkii properties 3 ayaynu sharxaynaa marka waxa lagu yiraahday hadii two rows ama laba column oo ay leedahay determinant ay isku mid noqdaan yani sidee ay isku mid noqonayaan hadda halka hadaynu fiirino maxay ka kooban tahay that a waxa la siiyay waxay leedahay saddex row iyo saddex column ay leedahay marka hadda row 1 waa kan row 1 وهي سيدتن هي row 2 row 1 waa leenkan row 2 waa leenkan marka labadan ayaa isku mid noqday sidoo halka wacdahay marka haday isku mid noqdaan waxa weeye value of determinant wuxuu noqonayaa ever ayuu noqonayaa zero ayuu noqonayaa marka waxaan xasuusinaynaa properties 1 saynu u ogaano inay property 3 ay 0 la noqon karo marka ay labada row ama labada column isku mid noqdaan waa markii la raadinayo determinant marka properties 1 waxaynu ku soo dhiganay casharkaas hadaa soo koobo waxaynu ku soo dhiganay waxay ahayd hadaynu xasuusino qiimaha ay leedahay determinant-ga markii la kala bedelo row hadda ka soo qaad qiimaha la siiyay determinant 1 qiima ay leedahay la siiyay ay ka kooban tahay sidaan kale row iyo column but ay isku mid ahayn columnski row ay isku mid ahayn marka determinant-geeda aan soo raadiyo determinant-ga marka soo raadiyo waxa ay soo baxday that a1 ay soo baxday yani waa isxasuusinaa marka properties 1 waxay oranaysay markii row loo bedelo column hadda kanaan ka shaqeeyay ayaan ka shaqeeyay inta ay soo baxday hadhow isla eeda qiimaha la siiyay ba waxaan kala bedelayaa row iyo column markaan kala bedelo waxa ay soo baxaya qiimaha b waxa ay soo baxaya marka row iyo column kala bedelo isla that a ay soo baxaysa that a1 ay soo baxaysa isla qiimaha ay soo baxaysa dib ugu noqdaan waa ininka fahmi doona waa soo koobay properties 2 waxay oranaysay hadii properties 1 waxay oranaysay rowga waxaan u bedelnaa column ama column ayaa waxaan u bedelnaa row yani marka hore qiimaha la siiyay ayaa determinant iska raadinaya marka dambana row iyo column ayaa kala bedelaya sida inta ay soo baxay wax isbedelay ma dhacay properties 2 waxay oranaysay hadii laba row ama laba column la kala bedelo yani ka soo qaad waxa la siiyay qiimaha ayadka waxa la siiyay a1 ayaa la siiyay determinant-ga marka aan raadiyo waxay soo baxay that a ay soo baxay inta ay soo baxay ay u qaadanayaan hadhow markaan laba row ama laba column kala bedelo yaa properties 2 waxay oranaysaa laba row ama laba column ba kala bedelaya laakiin tii hore maxay ahayd row ayaa column bedelaya laakiin properties 2 waxay oranaysaa laba row ama laba column ayaa kala bedelaya markii aan kala bedelo ka soo qaad isla a1 markaan kala bedelo b2 ayaa u qaadanaya negative ay qaadanaysa determinant-ga negative a2 a1 ay soo baxay negative ay soo baxay yani qiimaha a1 isoo baxay marka rowga marka muxuu ahaayay laba row markaan kala bedelo row 1 iyo row 2 markaan kala bedelo yani waxaan kala bedelayo wax weeye row 1 iyo row 2 ayaan kala bedelayaa row 1 iyo row 2 ayaan kala bedelayaa marka b2 waxay soo baxaysaa minus that a yani isla qiimihii oo negative ay soo baxay marka hadaynu aan ku dabaqo determinant property 3 hadaan ku dabaqo determinant marka property 3 wuxuu ku oranayaa determinant a1 waxay la mid tahay negative of a1 negative ayaa soo baxaya markii aan soo wareejiyo waxay noqonaysaa plus ayay noqonaysaa waxay noqonaysaa 0 marka 0 lama noqoto waxaan isku darsamaya determinant
equal 0 marka both side maxaa u qaybinayaa laba ayaa u qaybinaya determinant a1 maxaa isoo baxaya eber ayaa isoo baxaysa marka example ahaan ayaynu u sharxi doonaa laakiin sida ku timaada waxa weeye kan dambe oo negative soo baxaya haddii laba row la kala bedelo ama laba column negative ayaa soo baxay soo ma yacni maantay maxaa labadan row haddii aan kala bedelo waa isku midkii haddii ammaan isku ilaa halkan waa 2 iyo 3 iyo 4 2 iyo 3 4 marka maxaa isoo baxay isla negative ayaa soo baxay markii aan isku daro eber ayaa la noqonaysaa waayo kan ayaa soo wareejiyay dhowr maxaa u qaybiyay 2 ayaa u qaybiyay determinant 1 maxay la noqotay 0 saas ay 0 kula noqotay waana waxay noqonaysaa properties kaas property 3 ayaa loo yaqaanaa property 3 ayaa loo yaqaanaa properties saddexaad saa ayaan ku sharxnay marka maxay noqon noqotay 0 ayay noqotay 0 ayay noqotay saas ay 0 kula noqonaysaa example ayaan ka bixin doonaa fiican ayaan ka bixin doonaa hadda waxaynu fiirinay conceptska ayaynu soo koobinay inaan concept ka heshay